muuqaal soconaya 20 daqiiqo iyo 55 ilbiriqsi oo YouTube-ka la soo geliyay ayaa ciwaan looga dhigay Abwaan Dhiirane dagaal culus dhexda ka galay iyo nabad sugidda Jubbaland iyo dagaal qaraar. Dagaal culus iyo dagaal qaraar waa laba eray oo inta ay qoran yihiin ka miisaan culus kana mug weyn. Dagaal weligiisba ma fududaan mana macaanayn, laakiin muuqaalada aanu daawan doono ma yihiin kuwa laga soo duubay dagaal culus iyo mid qaraar, mise waa jiliin aan waxba ka jirin oo daawadayaasha lagu qaldayo. Inta aynaan gudagelin sharaxaada, waxaanu ka afayfanaynaa in aynaan warbixintan uga gol lahayn in aynu ku suurad xumayno maamul, ciidan, deegaan iyo qof midna. Laakiin ujeedka ugu weyn uu yahay in aynu ku bidhaamino maxaa xaqiiqo ah, maxaase ahayn, si muuqaalada kale ee xiga ay u noqdaan kuwa xaqiiqda ku fadhiya marka bulshada la dhex keeno. waa la dhaqaaqay waa ciidanka nabad sugidda ee Jubbaland oo u ruqaansaday meel wax laga soo sheegay ilaa iyaga nabad sugidahe. Marka waxay naga ogolaadeen dhaka weyne media haddaan nahay inaanu ciidanka raacno, balse aan u soo inaydayno hawlgallada iyo meelaha la isku raamsanayo. Abwaan Dhiirane wuxuu noo sheegay in goob la isku raamsanayo oo furin dagaal ah loo socdo. 12 daqiiqo kadib waxaa la tagay meel magaalada duleedkeeda oo dhul baadiye ah. Ciidankii ku socday baabuurta ayaa ka daatay si ay dagaalka u galaan. Bal muxuu yahay waxyaabaha iska hor imaanaya ee muuqaalkan ku jira? Ila daawo xaqiiqooyinkan soo socda. xaqiiqda koowaad, meesha la tagay oo ahayd meel cidla ah oo aan dablay kala joogin. waxaanu ku soo dhawaanay barta cadowga laga filayo hadda noo jirta 0.7 kilometers. Abwaan Dhiirane waxa uu noo sheegay in ragga la weerarayo ay ku sugan yihiin meel u jirta meesha ay iyagu taagan yihiin 0.7 kilometer. waa eber dhibic 7 kilometer. haddii tiradaas kilometerka ah meter loo bedelo waxa ay noqonaysaa 700 oo meter ama 700 oo tallaabo. waa masaafo aad u dhow. sidaas oo ay tahayna Abwaan Dhiirane iyo askarta la socota si degan oo xasiloon ay u taagan yihiin, waliba way iswareysanayaan. way iga baabaaysaa mardhow way iga baabii mardhow xogaa hadda gacantaas ay yar waxa isweydiin mudan, masaafada intaas yar la eg sidee ragga halkaas ku sugan ee la soo weeraray ay ku maqli waayeen guuxa baabuurta teknikada ah, codadka iyo shanqarta ciidanka ku soo weeraray oo iyaga ugu yimid dhufayskooda. kooxda la soo weeraray ee bartooda loogu yimid inta ay raggana iswareysanayeen, iyagu ma iska sugayeen ilaa xabadda lagu bilaabo, mise waxay ahayd inay goobta ka cararaan ama ay rasaas iska caabin ah bilaabaan. waxaanu si fudud u dhihi karnaa halkan ma joogaan wax dad ah oo qoryo wata oo lala dagaalamayo aan ka ahayn ciidanka halkan yimid. waxaanu ku sii ogaan doonaa xaqiiqooyinka kale ee soo socda. xaqiiqda labaad, rasaasta dhacaysa waa mid aan sax ahayn balse la dul saaray muuqaalka. dhagayso erayada iyo dhawaaqa xabadaha oo isburinaya. hadda rasaastu way istaagtay ayuu dhahayaa Abwaan Dhiirane. sidaas oo ay tahayna weli waxaa la maqlayaa dhawaaqa rasaas xooggan oo dagaal ah. xaqiiqdu waxa ay tahay rasaasta aanu maqlayno ma ahan mid markaas goobta ka socotay ee waa mid muuqaalka la dul saaray. dhagayso ragga dagaalyahanada ah ee takbiirta ku qaylinaya. waa shanqar iyo dhawaaq dagaal oo laga qabtay dagaalkii ay al-shabaab ku weerareen xerada Ceelcadde. xabadihii iyo qayladii muuqaalkaasi laga soo duubay ayaa loo adeegsaday cod ahaan in muuqaalkan la saaro. laakiin waxay isweydiin ka imaan kartaa sidee ku dhacday in isku mar aanu maqalno codka Abwaan Dhiirane oo goobta jooga iyo xabadahan oo laga keenay muuqaal kale. taas way sahlan tahay. muuqaalkan cusub isagoo aan codkiisa la xirin ayaa codka kale ee dagaalka shabaab ah la dul saaray. waa intaas.
xaqiiqda saddexaad, wax dhiilo ah goobta kama jirto. abwaan dhiirane iyo ragga kale ee ay wada socdaan way iska lugeynayaan iyaga oo aysan ka muuqan wax dhiilo dagaal iyo xitaa feejignaan ah. dhawaaqa xabadaha oo aad u xoogan iyo rag qaylo dhaaminaya ayaa la maqlayaa. sidaas oo ay tahayna abwaan dhiirane iyo askarta uu la socdaba wax weyn oo dareen ahi kama muuqdo. sidee ku dhacday? xaqiiqdu waxa ay tahay wax ay ka baqaan ama dareen geliyaba goobta kama jiraan. xaqiiqda afraad, xabado ayaa socda, dagaal qaraarna waa lagu jiraa, sida uu hordhacaba noogu sheegay abwaan dhiirane. isaga iyo askariga u dhowba dhulka ayay dhambacaadsadeen si ay rasaasta uga gambadaan. laakiin dhinaca kale fiiri, taliyaha iyo askarta kale ee meesha iska lugeynaysa ee aan wax dareen ahi ku jirin, sidee isku qaban karaan? xaqiiqda shanaad waa midda uga yaabka badan. eeg, abwaan dhiirane sida uu dhulka u jiifo, sida nin dhufays ku jira, wuxuuna la jiifaa telefoonkiisa gacanta isaga oo iska dhigaya sida qof qori haysta oo wax shiishaya. su-aasha halkan taala waxa ay tahay, ma waxaa soo baxay mobile ay rasaas ka dhacdo oo dad lagu toogan karo? tani waxayna tusaysaa in abwaan dhiirane laftigiisa uu ku saamoobay jilliinkii uu samaynayay oo ay xaaladdu soo jiidatay isaga, halkii ay ahayd in uu daawadayaasha ku saameeyo jilliinkiisa. xaqiiqda lixaad, qoryaha oo aan wax rasaas ahi laga ridin. si degan u daawo qoryaha ay wataan askarta, wax rasaas ah kama dhacayso. sidaas oo ay tahayna xabado ayaa la maqlayaa. sidee arrimahaasi isku qaban karaan? xaqiiqda toddobaad, nin aan dhaawacmin oo lagu sheegay inuu dhaawacmay. dhegayso hadalka abwaan dhiirane. wuxuu dhahay kii dhaawaca ahaa wuu dhintay. bal aan eegno meydka qofkaasi dhaawaca ahaa ee abwaan dhiirane uu sheegayo in uu dhintay. ninka dhaawaca ayaan u tegaynaa. sow hadda ma dhahaynin wuu dhintay. ninka dhaawaca ah ee aan wax dhiigahi ka socon jirkiisu, si xayi ahna u kadaloobsan, sidee suurtagal ku noqotay? tan kale, nin dagaalamayay oo gacmaha iyo lugahaba ka furan, haddana qorigii uu ku dagaalamayay si qumaati ah uu u agyaalo, sidee ku dhacday? daawade, haddii aad intaas ku qanci weysid, waxaan ku tusayaa ninka lagu sheegayo in dhaawac lagu qabtay in uu yahay nin ciidanka la socday bilowgii filimkaba, kadibna laga codsaday inuu sheekada wax ka jilo. ila daawo. xaqiiqda sideedaad, intii uu muuqaalku socday waxaa la maqlayay dhawaaqa qoriga xabadaha dabajeexa. haddana sidaas oo ay tahay, fiiri dhammaan qoryaha dabajeexyada ah ee ay askartu wataan, mid kasta silsiladaha rasaasta sidoodii ayay u buuxaan, umana eka kuwa rasaas laga riday. dagaal dhowr iyo 10 daqiiqo socdayna waa la galay. sidee isku qabanayaan? waa qodob kale oo na tusaya in muuqaalku yahay mid la jilay. ugu dambayn, muuqaalkani jilliinba ha ahaadee wuxuu dhiirigelin iyo baraarujin wanaagsan u noqon lahaa askarta Soomaaliyeed ee shacabkooda difaacaysa, meel kastaba ha joogaane, waase haddii si xirfadaysan ah loo jili lahaa filimka. laakiin ciwaanka hadda muuqaalka la siiyey iyo sida ay xaqiiqdu tahay waxay abuuri kartaa niyad jab daawadayaashu ay ka niyad jabaan muuqaalada caynkan oo kale ah